Bismillahirrahmanirrahim. Kusoo dhawaada Moah Statistical Software Training. In this movie, waxaanu ku dhigan doonaa sidaan u soo saarno qualitative data ama categorical data oo ah frequency distribution. Marka koowaad waxaan isla eegaynaa buuggan ayaanu doonaynaa in aynu kusoo bandhigno frequency data. Okay, haddaba frequency distribution maxaa noo noqonaya? Frequency distribution waxa weeyaan waa tablekaasoo datadeena u qayminaya group haniraane classes, sidoo kalena ina tusaya inta data ee galaysa each groups. sidoo kalena waxaan soo saaranaa this datadan ayaa waxaan kusoo bandhiganaa frequency, relative frequency iyo percent frequency. sidoo kalena waxaan soo saaranaa graphical display uu ka mid yahay bar chart iyo pie chart aan kusoo bandhigin. sidoo kalena waxaan kusoo bandhigi doonaa datadeena pie chart iyo 3-dimensional pie chart oo ah soft strings. haddaba datadani waxay ka kooban tahay 5 popular soft drinks oo la cabo uu ka mid yahay Coca-Cola, sidoo kalena ugu dambeeyo Sprite-ka. haddaba waxa la soo select gareystay conton soft drinks ama 50 ayuu sample-keenu ama sample size-keenu uu yahay. datadan ayaan waxaan gelinaa Excel-ka sidaan ugu install gareyno ama sida Excel-ka uu analyze gareynayno. Okay, waxaan soo saaranaa soft drinks ayaan datadeena soo qaadanay. sidoo kale waxaan soo saaranaa table, frequency table iyo relative frequency iyo percent frequency. sidoo kalena waxaanu datadeena ku turjumaynaa pie chart, sidoo kalena pie chart iyo 3-dimensional pie chart ayaan kusoo bandhigi doonaa. sidoo kalena waxaan kusoo bandhigi doonaa megastat ayaan kusoo bandhigi doonaa frequency distribution for a qualitative data iyo pie chart-ka ayaan kusoo bandhigi doonaa. haddaba aan isla eegno sida aan ku sameynay. here halkan haddaba solution 1 ayaan haystaa. waxaad aragtaan datadani waxay ka timid oo laga soo draft gareeyay waa data file-ka aanu buuggii markii aan naga tusiyay uu ahaa. haddaba marka koowaad waxaan sameynaynaa insert function-keena ayaan tegaynaa, ama marka koowaad waxaan sameynaynaa buffer table ayaan sameynaynaa. buffer table-ka waxaan ka tegaynaa insert function ayaan ka tegaynaa, aan iraane insert tab, dan waxaan ku dhufanaynaa buffer table. ama adigoo home tab jooga ayaa waxaa oranaysaa alt n iyo v. halkaa waxaa nooga sameysmay buffer table. then waxaan select gareysanayaa dooranayaa range-kayga, markaa datadii ayaan dooranayaa dhammaanteed. then markaan doorto sidoo kale waxaan dooranayaa bartii datadeydu uu ka sameysmi lahaa ama name boxkii uu ka sameysmi lahaa. waxaan ku sameysmayaa waxaan doortay C1 ayaan doortay name-ka. then waxaan ku dhufanayaa okay button. markaan ku sameysmo now hadda waxaa sameysmay buffer table-keena ayaa noo sameysmay. halkan waxaan ku haysanaa buffer table field. waxaan gelinaa haddaba soft drinks-kaas soo qaadanaa, waxaanu drag aanu ku daranaa row ayaan ka dhiganaa. markii koowaad waxaa sameysmay dhammaan 5 sample ama 5 aan u baahnayn inaan analyze gareyno. haddana mar labaad baan soo qaadayaa soft drinks, waxaan dhigayaa value ayaan dhigayaa. then halka waxaa ii soo baxay count. hadda waxaa sameysmay frequency-gii baa sameysmay. maybe waxaa dadku ku confuse gareymayaan ama ay ku dabaqayaan haddii ay halkaasi sum ka noqoto. waa iska ilaalinaysaa, waxaad doonaysaa waxaa ka bedeltaa dhinaca sound of soft drinks ayaad click siinaysaa, then waxaad ku dhufanaysaa value field setting, then waxaan xaggaa ka dooranaa count. haddaba halkaas isla markiiba waxaan ka bedelnaa dhinaca count of soft drinks, waxaan u bedelnaa frequency. then waxaan ku dhufanayaa okay button. halkaa waxaa ka sameysmay frequency
dhinaca lafteedana waxaan u bedelayaa soft drinks soft drink ayaan u bedelayaa. dhinacana kalena grand total ka waxaan bedelayaa total. haddaba halkanna waxaan ku soo saaraan xisaabinayaa relative frequency-geeda ayaan xisaabinaa r dot and frequency. okay, haddaba maxaan ku helnaa relative frequency-geena? waxaan ku helaynaa number of a frequency-geena aan u qaybino totalkiisa. waxaan oranaa equal ayaan oranaa. equal markaan nidhaahno waxaan oranaa d2 means waa maxay? waxa weeyaan waa salkayga waa column-kayga d iyo row-gayga 2 datada ku jirta waa 19 divided by ayaan oranayaa. waxaan ka horeysiinayaa dollar sign ayaan ka horeysiinayaa si datadina column by column ay u qaybsanto. dollar sign d daas sidoo kale waxaan dooranayaa iyo d7 iyo d2 waxaan qayb dollar sign ayuu qaybinay si datadina ay isoo galo column by column ay u qaybsanto. waxaana ku dhufanayaa enter. then ana xaga jooga ayaan hoos soo jiidayaa dhammaan waxa ii soo baxay dhammaan datadida aan u baahnaa. kan laftiisa haddaan ku dhufto kan iyo kan baa isku qaybsan, sidoo kale kan laftiisa haddaan kan iyo kan baa isku qaybsan. waxaana u dhaxaysiiyay dollar sign kaas wuxuu ku sheegay in by column datada aan u qaybinayo. okay, sidoo kale waxaan soo saarayaa totalka sumka frequency-ga. waxaan ognahay ama xasuusanahay relative frequency-ga totalkiisa marka la isu geeyo inuu la ekaanayo 1 adigoo ka eegaya and equal ayaan waxaan oranayaa sum, then waxaan siinayaa enter. wuxuu kula mid yahay equal ayuu kula mid yahay 1. sidoo kale waxaan soo saarnaa percent frequency ayaan soo saaranaa. percent frequency wuxuu kula mid yahay intan aan ku dhufanay 100 equal intan times 100. then waxaan siinaynaa enter. kamaan soo qaadanaa hoos ayaan soo dejinaa. then wuxuu noola mid yahay marka intaan soo qaadanay 100 ayuu noola mid yahay. ama haddii kale tan delete garayno wuxuu kula mid ahaanayaa sumkeena, then enter ayaan siinaynaa. marka total frequency-ga isku soo geyno ama percent frequency-ga isku soo geyno equal to 100. haddaba intan ayaan midabeynayaa, waxaana ku midabeynayaa midabkaas. intan sidoo kale waxaan ku midabeynayaa huruud. sidoo kalena intan waxaan ku midabeynayaa isla midabkaas. now hadda waxaan dhamaystirnay buffer table-keeni ayaan dhamaystirnay. intana bold, sidoo kalena intana aan bold ka dhigno. now imika table-keeni frequency table-keeni waan sameynay. hadda waxaan diyaar u nahay inaan soo saarno sidoo kale by charge-ka aan sameyno. xageed ka tegaysaa intan ayaad highlight garaysanaysaa. markaad highlight garaysatid waxaad ka tegaysaa insert function ama insert tab. marka insert tab-ka waxaan ku dhufanay recommended charge. waxaana ii soo baxay charge-kaas ayaan ku dhufanaya. dan waxaan siinayaa okay button. marka siiyo xagga waan iska soo gaabinayaa. markaan iska soo gaabiyo isaga laftiisa ayaan ku dhufanayaa. waxaana ku soo baxaya format charge area markaan click siiyo. ama haddii kale adigoo kan jooga ayaad waxaad taabanaysaa control 1. sidoo kale waxaa ku soo baxaya format charge area ayaa ku soo baxaysa. haddaba grid card ama limamkan ayaan iska delete gareynayaa. markaan iska delete gareeyo waxaan soo saaray haddaba waxaan dooranayaa sidoo kalena series total ayaan dooranayaa. waxaana doonayaa halkan ayaan ku dhufanayaa series option. markaan ku dhufto waxaan gaabka ayaan ka dhigayaa 100 si uu gaabkaygu isku soo dhawaado. intan haddaan doono waan kasii weyneyn karaa. xaggan ayaa rectangle ka yar baa ku dhufanaysaa si uu yaraado oo isku soo dhawaado. de markan intaan sameeyo waxaan haddaba isla markiina aan xaggan ku dhufanayaa
then waxaan field ayaan waxaan ku darayaa dhinaceena areadaas ayaan midabka ku darayaa green field. sidoo kalena halkan doono waxaan ka dhigaa linear, then colorka waxaan ku shubayaa color yaro sana, then halkan waxaan ku sameynay formula bar chart-kii. then haddana waxaan doonayaa in sidoo kalena aan sameyno aan soo saarno pie chart-ka. okay, haddaba pie chart-kana waxaan dooranayaa intan ayaan highlight gareysanayaa soft drinkiska iyo frequency-giisa. insert tab ayaan tegayaa ama insert ribbon, then waxaan ka dooranayaa pie chart-ka, then waxaan dooranayaa 2D pie chart. hadda waa kan ii soo baxay. marka maxaan sameynaa isaga halkan isaga laftiisa aan ku dhufanayaa. markaan ku dhufto waxaan oranayaa green. midabkii aan ka ku shubay ayuu si automatically ugu shubay. hadda maxaan doonayaa xagan castle baan oranayaa, waxaan ku dhufanayaa chart element, then waxaan oranayaa label chart, then waxaan small rectangle ka baan furayaa, waxaan ka dooranayaa more option. waxa ay soo baxaya format data label, then datadeena ayaan wax ku soo bandhiganaa percent frequency. sidoo kale name category-geena waan ku soo bandhiganaa. okay, haddaba intan ayaan doonayaa inaan muujiyo. farta ayaan ka bedelayaa, waxaan ka tegayaa waxaan dooranayaa haddaan doono adigu form aan u baahanahay black, then haddaan doono waan ku deynayaa 10 baan ka dhigayaa. kan ayaan iska kansalayaa. markaan iska kansalo waxaan oranay markaan ku noqonayaa, waxaan oranayaa outside datadeeda ku soo bandhig. okay, haddaba kan waan soo saarnay. waxa inoo haray haddaba 3D element ayaa inoo haray. okay, 3D element ayaa inoo haray. haddaba maxaan ku helnaa isaga si la mid ahna maxaan sameynaa. haddaba intan ayaan highlight gareysanayaa. markaan intan aan highlight gareysto ayaan haddana mar labaad waxaan tegayaa insert, then waxaan dooranayaa isla markiina mar labaad pie chart ayaan dooranayaa, then xagan 2 pie ka dooranayaa, imika 3D pie ayaan dooranayaa. waa ka haddaba ii soo baxay 3D dimension keeni. haddaba maxaan sameynayaa xagan baan click baan ku dhufanayaa, dhinacaan aan taaganahay, then waxa ay soo baxay format chart area ay soo baxay. ama haddii kale sidaan hore nagu sheegay waxaan ku dhufanayaa anoo kan doortay aan select gareystay ayaan control 1 aan ku dhufanayaa, waxaana ay soo baxaya format chart area sidii markii hore uu soo baxay. waxaan ka dooranayaa midabkeena haddaan doono automatically ayuu ku shubayaa. sidoo kale waxaan doonayaa datadeena in aynu percentage aan ku soo bandhigno, aan bartaan aan dhigno. halkan baan cancel iska oranayaa, element chart-ka dhinaca plus-ka ayaan ku dhufanayaa, then xaggan baan tick siinayaa, rectangle ka baan furayaa, then waxaan dooranayaa more option. marka more option aan doorto tigta waxaan ka qaadayaa value ayaan ka qaadayaa, tigta waxaan ka qaadayaa value-geena. marka tigta ka qaado percent ayaan tick gareynayaa, then value-gaas aan ka qaadayaa, waxaan tick saarayaa category name sidoo name-keeni pipsigii uu soo galo. hadda marka halkan oo kale taaganahay ma cancel halkan iska oranayaa. intan ayaan doonayaa font-ka inaan ka bedelo, home tab-ka ayaan ku dhufanayaa, then waxaan dooranayaa Arial black, size-kana waxaan ka dhigaa 100. haddana mar kale ayaan ku dhufanayaa si uu datadeena uu outside uu dhigo. okay, maxaa inoo haray? waxaa inoo haray haddaba halkaasina isagana 3 dimension keeni, then haddaba datadaas saas baan u sameynay. okay, haddaba waxaan doonaynaa inaynu megastart aynu haddaba aanu datadeena megastart aanu kaga shaqeyno. xagaan tegaynaa marka koowaad waxaan tegaynaa array baan ku dhufanaynaa. markaynu array ku dhufano waxaan ka doolanaa megastart, waxaan ku dhufanaa frequency distribution,
markaan click siino waxaa inoo soo baxaya pop-up menu waxaanan ka dooranaa quality. Haddaba waxaan input rangekeena ayaan gelinaynaa, waxaan dooranaynaa soft drinks. marka intaan dooranaa sidoo kalena waxaanu dooranaynaa aan select garaysanay specification range ayaan dooranaa. then marka intaan sameyno waxaan ku dhufanaa okay button. haddaba inputkii ayaa noo soo baxay, outputkii megastartka ayaa noo soo baxay. halkan waxaan ku haysanaa frequency distribution, wuxuu noo soo bandhigay frequency ayuu noo analyze gareeyay iyo percent frequency-geeni. hadda markaan doonaa halkan oo kale waxaan ka bedelnaa, waxaan oranaa soft drinks. marka intaan sameeyana charge-keena ayaan iska qurxisanaynaa. markaan iska qurxisano waxaan taabanayaa control 1 ayaan taabanayaa, then waan buuxsanayaa. halkaasna waxaan ku sameynay frequency distribution keeni ayaan bar chart kusoo bandhignay. outputka inoo soo baxayna waxa weeyaan waa megastat kan ku analyze gareynay. sidoo kale halkan intaan doono iska qurxisanaynaa, halkan kalena waan iska qurxisanaynaa. intaan kalena midabka doontid ayaad ku shubi kartaa aad adigu jeclaatid. sidoo kalena halkaana waxaan ku soo saarnay frequency distribution inagoon ku sameynay megastatkeena aan la soo bax ku soo saarnay. okay